haddaba tartankii xiisaha badnaa inaad la socoteen ee tartanka adeega bulshada waxa ugu dambeyn ku guulaysatay kooxdii ama tartamayaashii ka socday jaamacadda Hargeysa. kooxdaasi oo intii barnaamijku socday magacooda waxa ay la baxeen Bulsho Kaab. wareegii koowaad waxa uu tartan dhex maray isla markaasina ay ka guulaysteen tartamayaashii ka socday jaamacadda Golis oo ay ku tartameen adeeg bulsho oo ahaa in adeeg loo qabto 10 qoys oo baahan. hormaray soo dadaali doona caawiye group waa la idinka yara hormaray marka waad soo dadaali doontaan hadii wareegii labaadna waxa uu tartan adag dhex maray tartamayaashii ka socday jaamacadda Beder oo ay ku tartameen adeeg bulsho oo daarana dhinaca nadaafadda iyo in meelo kamida meelaha ay bulshadu isugu yimaadaan laga nadiifiyo qashinka. caawa tartankan qolada hadhay ee ka hadhay tartanka waa Bulsho Kaab oo ka socotay Beder. wareegii saddexaad ee finalkana waxa ay ka badiyeen isla markaasina ay la tartameen tartamayaashii ka kala socday jaamacadaha Beder iyo Addis iyo New Generation. tartamayaasha Bulsho Kaab ee ka socday jaamacadda Hargeysa waxay ahaayeen kuwo hawlihii loo diray iyo adeegyadii bulshada ay fuliyeen u qabtay qaabka ugu habboon sida ay qireen ama ay sheegeen guddiga garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshadu. waxaan xagan ka iclaaminaynaa kooxda ka guuleysatay tartanka adeega bulshada ardayda jaamacadaha ee 2020 in ay tahay kooxda Bulsho Kaab ee ka socota jaamacadda Hargeysa. anagoo team Bulsho Kaab kana socda jaamacadda Hargeysa kulliyadda adeega bulshada waxaan ku faraxsanahay caawa inaan guuleysanay iyadoo daal fara badan iyo shaqo fara badan jirtay haddana waxaanu caawa ku ilaaweynaa inaan labadii jeerba guuleysanay oo maxaa la yiraahdaa in bulshadii loo shaqeeyana waa guul tartankii lagu guuleystaana waa guul.